kusoo dhawaada sheeko taxana inoo noqon doonta oo dhacdooyin dhab ah ka warrami doonta waxaa dhacdada tan la kulmay qoraalkana ka sameeyay wariye Maahir Jaamac Aadam anigoo ah Ciise Maxamuud Ciisana waxa aan saarayaa codka sheekada ciwaankeedu waa mulkiilaha qaranka waxaana ay ku bilaabanaysaa sida waa nin dhalinyaro ah oo sita magaciisa iyo kan aabihii oo ka kooban guud ahaan 12 xaraf wuxuu astaanta ciwaankiisa Facebook u isticmaalaa mid ka mid ah calaamadaha qaranka daahan waxaan ku qiyaasi karaa inta u dhaxaysa 25 ilaa 30 sano wuxuu ku hadlaa afka Soomaaliga gaar ahaan lahjada waqooyi oo ereyada qaar sida koonfurta ugu dhawaaqo wuxuu ka mid yahay dhalinyarada bartan Facebook igula saaxiibka ah waliba marka aan daabaco sheeko ama war ku saabsan xasaradaha siyaasadeed ee markaas jira waa ninka ugu walaaca badan ee si qaasa igala soo xiriira qaybta wada hadallada wuxuu ii muujiyaa mararka qaar wadaniyad badweyn ah marka aan tabiyo dhaliilaha xukuumadda wuxuu igu yiraahdaa si gaar ah kelmado aan ismoodo inaan ahay ruux ardaygiisa ah oo uu waxbarayo mar walba waa nin ku foogan warbixinada ka hadla geeska Afrika gaar ahaan Soomaaliya wuxuu ana iga dhigtay saaxiib dhow ilaa uu gaaray inuu isku dayo wacinta habka aan mararka qaar u fikiro dhowr jeer ayaan isweydiiyay ujeedada qofkan sida dhow ila soo dirsay haddana raba inaan si gaar ah xilliyada qaar uga faaloodo aragtidayda ku aadan waxa ka jira Soomaaliya waxaan aaday profile-kiisa Facebook dhowr jeer waxa ugu badan ee aan ugu tagay waa qoraallo uu sheergareeyay oo dhammaan ka hadlaya wanaaga xukuumadda nabad iyo nolol sidoo kale sawirada madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Khayre maalin ayaan kula kaftamay saaxiib waxa tahay wadani laakiin maxaad sawirada madaxda uga reebtay gudoomiyaha baarlamaanka maalinkaas jawaabta qosol buu igu dhameeyay laakiin waxaan u gartay inuusan gudoomiyaha ama afayeenka wakiilada shacabka uusan baaqon muuqaal ahaan waxaan u diray sawirka xildhibaan Jeesow anigoo uga dhigaya afayeenkii wakiilada laakiin ima uusan sixin wuxuuna igu yiri hadal u dhignaa sidan boro odayga naftiisa masalana waan qoslay anna oo waxaan iri saaxiib magaalada ku nooshahay wuxuu igu yiri laasacanood laakiin sidaarun ma ahan ninka sifooyinkaas leh ma ahan ninka aan rabo inaan siiyo magaca ah mulkiilaha qaranka laakiin waa qayb ka mid ah qisaska xiisaha leh ee aad sheekadan ka dhexiri doontaan waana kan ugu muhiimsan ee ayna dhex mari doonto sheeko aad wax badan ka dhex fahmi doonto waxaan maalin ka mid ah maalmaha aan arkay post ay soo dhigeen BBC Afano Oromo waxaan furay qaybaha hoose ee faalooyinka dadka waxaan arkay saaxiibkaygii wadaniga ahaa oo ku jira dadka ka falceliyay sheeko ku saabsan in Ethiopia ay 19% ku leedahay dekedda magaalada Berbera isaga faaladiisa oo yara dheereed waxaan ka gartay magacyada laba magaalo oo ka mid ah dalkeena Berbera iyo Boosaaso kadib waxaan ka qaaday faaladiisa screenshot waxaana la wadaagay nin aan saaxiib nahay oo aan ku tuhumayay aqoonta luuqadan ninkii saaxiibkay ahaa saacado badan kadib ayuu ii soo qoray fasiraadda qoraalka laakiin anigu waan ku kalsoonaan waayay faaladan ma yeelan karo ruuxii wadaniga ahaa ee aniga iga sii lexjeclaa dalka sidaa darteed waxaan la wadaagay gabadh wax ku barata gobol ka mid ah Oromia kadibna waxa ii soo qortay micno aan ka duwanayn kii uu saaxiibkay ii soo qoray diiday mar kale waxaan la wadaagay nin qudhiisa Oromooda 20 sano la soo dhaqmayay kuna soo waxbartay kadibna isla fasiraadii ayuu ii siiyay waxaan bilaabay inaan si kale u fikiro waxaana sii xoojiyay saaxiibtinimada aniga iyo ninkaas wadaniga ahaa laakiin waxa uu micno ahaan qoraalkaas i bedelay ahaa waa kan aad isweydiinaysaan waxaan dhacdadaas kaga warrami doonaa qaybta labaad ee sheekadan xalqada soo socota waxa aynu ku lafaguri doonaa oo aynu jawaabo ugu heli doonaa su'aalaha gooxaya ee ah aniga iyo ninkan xageen isla gaari doonaa qisadu ma kaligii bay ahaan doontaa mise way ballaaran doontaa ma tahay qiso taabanaysa xafiisyo dawli ah sidee
maxaa ay qisada macnaheedu uu yahay la soco qaybta labaad kusoo dhawaada sheekadii mulkiilaha qaranka qaybta labaad sheekadan waxaa qoray wariye Maahir Jaamac Aadam waxaana codeynaya anigoo ah Ciise Maxamed Ciise qaybtii tan ka horeysay waxa aynu kaga soo sheekeynay in saaxiibkayga cusub ee wadaniga ahaa uu ka falceliyay qoraal BBC afaan Oromo ay ku baahisay barteeda taas oo ku saabsaneed Ethiopia inay 19% ay ku leedahay dekada Berbera وأنيجي قرال كيسو أو كقرنا أف أرامو أدنى وديرها كان فهمي لبا مجا أو كميدا مجالوين كصوماليات لو ذا جاي صدق قف ضمان تودنا إيسيين معنا كليا كل إيا لبا هدان دي محون نقضي معناها قرال كيسو معناها قرال كيسا ياها وحان ديارنا عند كده بربرية بوصاصو أي ستوصا وماموشو دولة ديمقراطية إثيوبيا inta ay Soomaaliya cagaheeda ku istaagayso Ethiopia maahan xilligii Tigreega ay maamulayeen ee Soomaalidu ha fahmaan in Oromo ay yihiin dadka u soo dhicin kara xaqiiqo maqnaa intaas ayaan ka soo qaadayaa ahmiyadda qoraalkiisa dheera waxa kale oo ku badnaa kelmado xambaarsan jacayl iyo raxmad badan oo aad moodo in lamaane isjecel ay ku wada dardaarmayaan markii ay saddex ruux halkaas micno ee isku midka ah iigu sheegeen qoraalkiisa ayaan ugu dambeyn isagana la wadaagay qoraalkii waxaan su'aalay qadiyadan sababta uu ku doortay isagoo oo ku talinayo in qoomiyad iyo hantideedii loo hibeeyo qoomiyado kale waxaan u raaciyay kelmad ahayd marxalad noocee ah baad ku jirtay marka aad bixinaysay faaladan uu diidayo damiir walba oo Soomaaliyeed xitaa haddii uu waalan yahay ruuxu wuxuu iigu jawaabay inaan ka dhashay aniga mid ka mid ah beelaha xaraanta ku haysta dal deegaan iyo dad aysan lahayn oo dawladnimada diidan wuxuu galay weerar aflagaado iyo u badan habaar laakiin isaga duco iyo wanaag ay la tahay markaas waan yara cadhooday aniguna waxaan ku yiri aniga qolo aanan ahayn baad igu sheegtay ee bal aan hubiyo inay beeshaadu xalal ku nool tahay bal ii sheeg wuxuu iigu yiri anigu qabiil miihi ee qaran baan ahay waxaan iri nin aan ku abtirsan 5 qabiil Soomaaliyeed ama 4.5 waxa loogu yeero ma noqon karo qaran Soomaaliyeed laakiin jawaabtiisu waxay noqotay intaba ma ihi way adag tahay inaad wada doodaan qof aydan waxba wadaagin haddana kugula doodaya waxaad adigu lahayd tan kale Soomaalida saddex u gaar ahaa laba ka mid ah waa la yeeshay afka dhalashada iyo dhulka arinta dhulka waxa lagu awood sheegtay nidaam dawli ah laakiin afka iyo dhalashada oo kuwa ugu sahlan ee gudaha loogu soo galay waana labada sahlaya in dhexdeena la dhigo doodo iyo khilaafaad mararka qaar aynan fahamsanayn ama inoorara jiho kale oo aynu ku kala lunno hayeeshee tan ugu xiisaha badan ayaa ah in ninkan uu iga sheekeeyay dhul iyo beero uu aabihiis ku lahaa gobolka Shabeellaha Hoose isaguna haatan yahay shaqaale mid ka mid ah safaaradaha dalka Soomaaliya uu ku leeyahay dalalka dariska ah labadaasba waa xaqiiqo adaba ma ajnabi buu noqon karaa ruuxaasi kuma xidhna jawaabta lahaanshaha dhul iyo ka mid noqoshada shaqaale dawli ah ee ahmiyadu waa u dhalashada dal ama qoomiyad laba maalmood kadib ayaan ku baraarugay group WhatsApp ah oo wata magac wadaniyiinta Soomaaliyeed waxaan maalintan aqrinayay fariimaha soo dhacaya dhamaan waxa ay ku qoran yihiin af Soomaali fasiix ah laakiin codadka waxaad moodaysaa in badi dad af Soomaaliga ku culus yahay ay soo duubayaan ma jiro mowduuc gaar ah oo laga hadlayo haddana mararka qaar kelmado xabashi ah oo turtuur ah ayaa soo dhacaya ninkii wadaniga ahaa ee saaxiibkay ahaa ayaa soo dhigay khabiirka Maahir ah soo dhaweeya sida rag i wada sugayay ayay mar qudha dhaheen soo dhawo ugaas anna waan dhawahay saaxiibayaal kadib waxa la su'aalay aragtideeda ku soo biirida groupka waxaan ku soo koobay aragtidaas dib baan u dhiganayaa sababtuna waa inaan waxaan dhahaba aanan aqoon xilligan la iguma sii dhibin weydiimaha laakiin waxaan ogaaday laba arimood oo muhiim ah tan hore
in wadanigan uusan ahayn nin keligii socda ee uu leeyahay saldhig dambe oo ay koox adag u fadhido. tan labaad, in qudhiisu xilligaas ku sugnaa Diridhawe sababta uu rabaha u joogay. waxa kale oo muhiim ah oo aan fahmay in quruumo fara badan ay u sahlan tahay inay ka taliyaan ayaha qoomiyad u gaar ah. haddaba halkaas waxaa nagu dhex mari doona sheekooyin mid walba wacyi gaar ah sidata. rag badan oo ka mid ah gruubka waxay joogaan Muqdisho ama koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya, qaar waxay joogaan Somaliland iyo Puntland, qaar dibadda fog, qaar kalena Ethiopia. waayo waxaan ka tusaale qaadanayaa nambarada ama teleefanada ay u isticmaalayaan gruubka. rag yar oo ka cadhaysan ku soo biiritaanka iyo gruubka ayaa maalmo isxigxigay isaga baxay meesha. waxaan idhi sidee ku dhacday in ka badan 200 oo qof oo wadaniyiin Soomaaliyeed ah midna aanan xitaa magaciisa horay meel ugu arag? sidee aqoon-yahanadiina Soomaaliyeed idinka aad isu taqaaniin? su'aalahayga ogaaldoonka ah waxay igu sii dirayeen saaxiibadii horay ii soo dhaweeyay qaar, laakiin anigu waxaan goobayay sidaan madashan ku fahmi lahaa. waayo xilliyada qaar arrimo masiiri ah ayaa lagu lafagurayaa, laakiin maalinkii dambe isla saaxiibkii i dhexgeeyay ayaa iga soo saaray gruubka. aniguse ma weydiin sida uu filayayna waxay ahayd inaan ka doodo arrinkaas. isagii ayaa si toos ah ila soo xidhiidhay. waxaan u sheegay in goobtu uu igeeyay aysan ahayn madal Soomaaliyeed loogana tashan horumar Soomaaliyeed, laakiin taas beddelkeedu tahay madal dariskeena oo looga tashado diburadka Soomaaliya. isaguna uu yahay mid ka mid ah jilayaashana afyaqaan ee maalinba noo horkaca cayda iyo dulmiga madaxda iyo amaanta madax kale asagoo danaha qoomiyadiisa fulinaya. aad buu u qoslay. wuxuu kitaab dhaar ah ku maray inuu yahay muwaadin Soomaali dhalad ah, jecel yahayna horumarka dalkiisa. waxaan u sheegay inuu noqon karo muwaadin Soomaaliyeed, laakiin dhalashadu noqon karto qoomiyad kale. taana wuu igu diiday. laakiin qodobkaas muhiim ma ahan ee ujeedadu waa inaan fahmo waxa ay yihiin dhowrka boqol ee ruux ee ku wada jira qolka magaca wadaniyadda la siiyay. waxaan u soo dhigay codsi yar oo markaan u soo bandhigay uu aad ula cajabay, marna aad uu uga warwareegay, laakiin uu ku qasbanaaday fulintiisa. qaybta saddexaad waxa aynu kaga jawaabi doonaa su'aalaha muxuu ahaa codsigaasi, dadkaas badan maxay ahaayeen, ma jiraan dad nala qabta danaheena, waa maxay ujeedadoodu? la soco qaybta saddexaad. kulanti wacan mar kale saaxiibayaal ku soo dhawaada sheekadii mulkiilaha qaranka qaybta saddexaad. sheekadan waxaa qoray wariye Maahir Jaamac Aadam, waxaana codeynaya anigoo Ciise Maxamuud Ciise. muuqaaladan iyo kuwa kale oo la mid ah waxaad ka daawan kartaa janalka ogaalka Audiosom. waxaan qaybtii ka horeysay kaga soo sheekeynay in saaxiibkayga cusub uu i dhexgeeyay group WhatsApp ah oo ay ku jiraan dad gaaraya 200 oo qof oo magac looga dhigay wadaniyiinta Soomaaliyeed. waayadii la soo dhaweeyay layna weydiiyay dareenkayga oo aan ka gaabsaday. waa anigoo ogaal raadiska u noqday bal inaan ogaado dadka halkan ku jira ee ku lafaguraya arrimo ama Siiriya mararka qaarkood. oo haddaan sii weydiiyay su'aalaha, waayadii raggii soo dhaweeyay qaybtood ay ka baxeen gruubka iyagoo aniga iga xanaaqay. deedna waa isagii uu iga saaray saaxiibkay qolka. waa anigii ka aamusay oo uu isagu ila soo hadlay. waataan wada hadal badan kadib u soo bandhigay codsiga. haddaba muxuu ahaa codsiga aan idin sheegay inuu ka warwareegay balse uu ku khasbanaaday inuu yeelo markii dambe? inta aanan guda gelin sharaxaadda waxa uu ahaa codsigayga, bal aan magac gaaban oo afgarasho ah siino saaxiibkay, kaas oo aan uga dhigayno sida uu isagu jecel yahay ee ah wadani. haddii qaarkiin aad dhaliilsan tihiin magacan, waxaad xasuusataan dad badan oo aan ugu yeerno cadaawe, balse midabkoodu uu madow yahay. waa muhiim in qofka la siiyo magaca uu jecel yahay si ay annaguna noogu soo gaabato tilmaamihiisa inta aan ku jirno sheekada. saaxiib wadani, waxaan codsanayaa inaad igu celiso qolkii wadaniyiinta ee aad iga soo saartay. haddii aanay ahayn goobtu meel u gaara,
koox isqarinaysa. waxaa rabaa inaan talada wadaniyadda la iga yeelan, marka hadda inaad igu celiso ayaan dalbanayaa. sidan ayuu ahaa codsigaygu, laakiin isagu wuu ku dhici waayay haye ama maya midna. wuxuuse igu cudur daartay inaan leeyahay laba sifo oo keenaya in qolkaas la iga soo saaro ama ay ka baxaan dad aniga dhibsaday fariimahayga aan la wadaagay kooxda. waa tan hore inaan ahay ruux su'aalo badan oo meelo aan muhiim ahayn ka keenaya weydiimo. waa tan labaade inaan ahay nin isticmaalka ereydiimeedkiisu badan yahay, goobtuna labadaas ay shaki iyo doodo kale ay ka dhici dhalin karaan. waa sax inaan su'aalo badnaa, laakiin ereydiimeedka la igu haysto ma insha Allah ba, ma alxamdulillaah ba, ma ilaah baa naga saaraya dhibta. ilaa hadda ma aqaan, waayo waxaan ahay ruux aan weligii dhaliishan quruxda badan horay ula kulmin. waxaan qaaday shaki kale iyo ama kaag, laakiin afka kama odhan oo gudaha ayaan keligay isu weydiiyey, talow ma isaga isku furanaya mise eedeymahan waa wax keeni kara in bannaanka lagu saaro. mar kale waxaan isdhahaa bisinka, war dadku ma xaqla dirir baa ku jira? maye saska ay ururdeemeedyadu abuureen armuu saameeyey. dhammaan isweydiintaas midna anigu naftayda ugama jawaabin, horay ayaana uga sii socday. wadani wuxuu yidhi golaha ayaan la soo tashanayaa kadib 2 toddobaad isma aanan maqal. muddadaas waxaan xilliyada qaar booqanayay barihiisa Facebooka, Twitterka iyo Instagramka, laakiin mucjisadu waxay ahayd markaan soo helay muuqaal live ah oo uu duubay waqti badan ka hor, gaar ahaan ku beegneyd xilligii uu dhacay isbeddelka dowlad deegaanka Soomaalida ee xabsiga la dhigay Cabdi Ilay. walina aanu wax maamul hoggaan ah uusan yeelan deegaanku. muuqaalkaas wuxuu ku hadlayaa cod aan ahayn mid Soomaaliyeed, laakiin afka uu ku hadlayo waa mid Soomaaliyeed. waxa uu hadlayaa sida nin aabbo u wada ah Soomaalida, wuxuuna ku baaqayaa halaaga iyo dilka dadka qaba fikirka Soomaali weyn. waan la degay muuqaalkaas ugu yaraan 5 maalmood ayaa marka aan fursad helaba iska daawan jiray. malaha haddaan Master Wadani hordhigo muuqaalkan muxuu haddana ku difaaci doonaa wadaniyadiisa? aniguse muhiim ima ahan inaan isu dhaarano ama aan wada doonno qancin awgeed, laakiin waxaan shakhsiyan muuqaalkaas ka helay jawaabaha su'aalo badan oo ku taagnaa naftayda, waana keedsaday. waqti yar kadib Abi Ahmed ayaa soo booqday Muqdisho. isla maalinkaas ayuu ila soo hadlay Master Wadani oo yidhi waxaan kula joogaa Muqdisho, laakiin kaftan ayuu markii dambe u rogay imaatinkiisa. waase macquul inuu joogay ama yimid maalmahaas. runtii ninkani waa nin fara badan, mararka qaar waxaad moodaa inuu u fikirayo si aniga uu igu maaweelinayo. anna waxaan ahay mid u guuri kara hadba marxaladda oo isku dayo inuu markaas ii raro. isla maalinkii xigay ayaan haddana is arkay aniga oo dhex jooga qolkii WhatsApp-ka groupka ahaa oo la bedelay ciwaankii iyo calaamadii saarneyd. waxaa loo rogay ciwaan ah isdhexgalka Soomaaliya. waxaana ugu horeeyay aan la wadaagay wuxuu ahaa cod aan duubay oo aan ku bilaabay qosol. waxaana aad ugu fogaaday ereyga isdhexgal iyo magaca Soomaaliya kali ah sida la isu raaciyay. waxaan xasuustaa inaan xitaa cidna salaamin, cidna salaan ka qaadin xilligaas xasarada aan dareemaya awgeed. nin ku hadlaya luqadda Ingiriiska iyo af Soomaaliya iswata ayaa igu yidhi kelmadda ah jooji faquuqa aad wado, martiba tahay ee ha fududaan. waxaan ku yidhi waxaan ahay mulkiilaha qaranka aad ka hadlaysaan, martina ma noqon karo ee admiinka ha laygu daro si aan goobtan u keeno aqoon-yahano badan oo Soomaaliyeed oo ka maqan madashan. Master Wadani ayaa soo hadlay oo igu yidhi maahir hawsha la qabso hana hordhicin ee u kaadi walaal. samaysan jiray wiidigeena durduuran jiray wiidanahooda samaysan jiray aynu dagaale kadigtoonaada dadka yago aynu dagaale. waxaan fahmay in qudhaydu ragisa dhicin ay ugu jirto sidaana aan ku weyn karo xogo muhiim ah oo haddaan isdabciyo aan heli karo. sidaa darteed taladii Wadani waan u madax ruuxay, laakiin qoraal iyo cod midna kuma aqbalin. aamusnaan ayaan ku qaatay.
rag wada jooga soo ma adka inay wax u kala qarsoonaadaan dabcan haa haddaba madasha waxaa ku soo biiray oday ka mid ah qolada mucaaradka dowladda federaalka ee Soomaaliya ee haatan jirta odaygaas waxa uu sitaa number telefoon Ingiriis ah oo WhatsApp u isticmaalo waxaana u saaran sawirkiisa sida gabadhii reer Xamarweyne ee cadada ku aragtay muuska ayaan mar qura ku boobay baridin laakiin igama uusan jawaabin ee kelmad gaaban oo Ingiriis ah ayuu nagu wada salaamay malaha waa nin sidayda oo kale wareersan ma ahane waa nin ka mid ah abwaanada qorshayaalka uu ku kala socdo qolkan dejiyay ma ahane waa nin uun lagu casumay intaas midna kuma tilmaami karo waan saysidhi war meeshu mucjisooyin badana hadda marka aad dhan u qaado waxa ay ka soo muuqanaysaa dhanka kale laakiin waa hubaal in dadkan iyo madashooduba ay diyaarsan yihiin isyaqaaniin isku kalsoon yihiin laakiin markaas wax weerar iyo dhibaato ah laguma soo qaado madasha waxaase aad looga falceliyaa khudbadaha iyo aragtiyada siyaasiyiinta oo mararka qaar la soo dhigayo groupka khudbadii aad hadaya dhageysatay oo leh laxan iyo erayo bixinaya faham kale marbaan isidhi majinbaad la daristay haddaba markaan wax badan ayaan fahmay rag badanna waan iskaftan baranay laakiin marna falanqayntooda kama mid noqon waayo wax kasta oo aan aaminsanahay waa wax khilaafaya sida groupku jecel yahay mana rabo in banaanka la iiga saaro goobtan xiisaha badan laakiin waxaan ku fikiray inaan muuqaalkii Master Wadani ee uu ku baaqayay laynta dad Soomaali ah ama Soomaali weyn diidka soo dhexdhigo groupka haddana go'aankaas uu ila qaraar yahay waxa ka iman kara kamana baaqsan karo inaan mar kooxdan tuso wajiyada kale ee ay leeyihiin laakiin taas maxaan kala kulmi doonaa qaybta afraad waxa aynu kaga jawaabi doonaa su'aalaha guuxaya ee ah muuqaalkaas muxuu ka bedeli doonaa groupka anigase muxuu dhaxal siin doonaa sidee dad taageersan xukuumadda jirta iyo odayaal mucaarad lagu yaqaano ugu kulmaan madal noocan ah xaqiiqdu waa maxay la soco qaybta afraad kulanti wacan mar kale ku soo dhawaada sheekadii mulkiilaha qaranka sheekadan waxa qoraalka ka sameeyay oo dhacdooyinkeeda la kulmay wariye Maahir Jaamac Aadam waxa codeynaya anigoo ah Ciise Maxamuud Ciise waxaad ka heli kartaa janalka ogaalka Odiosom iyo bogga Maahir Jaamac Aadam qaybtantii ka horeysay waxa aynu kaga soo sheekeynay in saaxiibkay Wadani uu yeelay codsigeygii oo isagii dhexgeeyay mar kale groupka kadib markii uu ii sheegay inuu la socday Abi Ahmed oo Muqdisho yimid balse uu kaftan u rogay waa anigii mar kale ka mid noqday qolkii oo magacii laga bedelay iyadoo loo bixiyay isdhexgalka Soomaaliya waa anigii maatiga iyo rag iska dhicinta cod ahaanta ugu duubay odaygii Ingiriiska iyo Soomaaliga isla socday igu jawaabayna waa isagii yidhi u kaadi martiba tahay waa anigii inta yara carooday aan ugu jawaabay waxaan ahay mulkiilaha qaranka danihiisa laga hadlayo waa anigii isa soo qaboojiyay kadib markii uu Wadani u kaadi yidhi kolkaas kadib qolkii waa isagii uu nagula soo biray odaygii siyaasiga ah ee aan salaanta kula orday balse Ingiriiska nagu wada salaamay soo socotay waa anigii soo sheegay inaan ka baaqsan waayay iyadoo ila qaraaraatay waxa dhalan kara haddii aan soo dhigo muuqaalkii aan ka hayay Master Wadani ee uu ku goodinayay in la laayo Soomaalida uu hadlayay sidii nin aaba Soomaalida u wada ah waa anagii isa soo weydiinay sida mucaaradka iyo rag taageersan xukuumadda ay meel u wada joogi karaan haddaba ku soo dhawaada qaybta afraad ee sheekada mulkiilaha qaranka kuma fududaan karo inaan markiiba golo loo dhan yahay aan dhex dhigo muuqaal dhalin doona muran badan iyo kala shaki waliba quseeya saaxiibka madasha igu casumay wax badan waa inaan horta ku sii talagalaa sida darteed maahan maanta xilliga aan dhigi lahaa marna ceeb igu noqon mayso inaan goobta muuqaalkaas keeno waayo madasha qudheeda ayaa ah meel aadaad rumaysan kadhaan aan ku arkay wax badan oo qoraaladiina ah oo laga soo qaaday sawiro haddana la falanqeynayo aadba ku kala badnaataane dhowr saaxiib oo hadda ka faalooda sheekadan ayaan arkay qoraallo public ah oo ay barahooda bulshada dhigeen
laakiin ay dad u soo waarideen madasha. kuwooda saamaynta badan leh waxaa lagu falcelinayay la hadal hebel ama hebla sida uu u fikirayo ama ay u fikirayso ma ahan sax. waxaad moodaa dugsi hoose dhexe oo uu macallinku saxayo ardayga inta uusan jawaabta dhammayn. waxaan indhaha ka daawadaba maalin ayaan isfurfuray oo bilaabay inaan la kafto marag yar oo aan siira fahanay oo qolka joogay. waxaan ku idhi niman yahow meesha caajis weynaa. nin ka mid ah ayaa igu yidhi Maahir feel free. waxaaba xigay odaygii aan ka gaabsanay magaciisa ee qolada mucaaradka ka tirsanaa oo qolka ka dhacay ama ka baxay. kadib isweydiin ayaa bilaamatay yaa dhibay odayga, waryaa tegay iyo muxuu dhibsaday. nin ayaa soo hadlay oo yidhi ilaa xalay waxaan la hadlayay siyaasiga. wuxuu ka cabanayay in qolka ay ku jiraan wariyaal ama dhalinyaro aan fahamsanayn ajandaha qolka, sidaana ay tahay khalad. waxaan u sheegay buu yidhi in ragga ku wada jira qolka ay yihiin aqoon-yahano iyo dad qurba joog ah, laakiin dabcan hadda wax buu dareemay sidaa ayuuna uga baxay qolka. war cajiibsana markaan hadlaba muxuu ruux la dudayaa, ma odhan siyaasad, ma odhan sidoo kale ahdaaf uu ruux la dido, kali ah waan kaftamay weliba sida ugu dabacsan. malaha kaamkii cuqdiga ayaan xaadiray. waxaan gaar ula soo baxay ninkii aan golaha kula dhex kaftamayay. waxaan ku idhi sida ruux isaga aada ugu kalsoon, war meesha dadkan wada cuqdadaysan ee dhooban maxay ahaayeen. wuxuu igu yidhi Maahir ii soo dir sawir nooca teesaraha ah oo aad leedahay, magacaaga oo saddexan iyo xirfadaada. waxaan la soo booday oo maxaa intaas la igaga baahday. wuxuu yidhi adigu in lagugu kalsoonaado ayaad rabtaa, adigiina dadka kuma kalsoonid. markaas ayaan idhi laakiin anigu cidna shuruud kuma xidhin kalsooni darteed, waxaase adigu weydiinaysaa waxa ii qaaska ahaa. kadib si cadho leh ayuu igu yidhi bal waayahay ee hayso waxaaga, annagana hana waalin. runtii hadalkaas aad baan uga cadhooday, waayo meeshan la kala leeyahay ee haddana ku xusan in la wada leeyahay ee kalsooni aan la isku qaadi karin la iska goobayo haddana sowyaab ma ahan. waxaan saaxiibkii hadalkii ugu dambeeyey ku idhi libaaxayn wacan saaxiib. maadaama doodaas ay ahayd xilli duhur ah ayaan fiidkii anigoo iska shaahaya waxaa i soo wacay Master Wadani. wuxuu igu bilaabay inaan khalad galay oo ah inaan la xidhiidho ninkii isaga ahaa, waayo ninkaas wuxuu ka mid yahay madaxda amniga qolka. calashaan waa ninka iska leh waajibaadka xaqiijinta qofka. bal waayahay maxaa la iga xaqiijinayaa ninkaygan hadda 2 bilood ku dhowaad fadhiya qolka. Wadani wax muhiim ah ayaan isla habeenkaas ka ogaaday hadaladiisa. waxaana ugu muhiimsanaa in siyaasigaas ay soo qaldeen rag ka mid ah qolka oo si ka duwan sida dhabta ah ee qolka loo sameeyay loo sheegay. kadibna uu isaga baxsaday meesha. waxaana laga rabay inuu soo dhigo qoraallo kadibna loo gudbiyo shakhsiyaad kale oo qolkan ka warsugayay. tan xigta in madaxda qolku tahay 13 ilaa 15 ruux oo mushahari ah. mararka qaar waxaa halkaas lagu qaybiyaa qoraalada xoogga leh iyo muuqaalada lagu jahwareerinayo bulshada. lacag laguma soo qaado qolka, dagaalna laguma soo qaado, kali ah sideen u qaladnaa garaadka bulshada. siyaasi hebel oo mucaaraday siyaasadaas sidaas ah sidee isaga qudhiisa ugu yeelnaa mowduuc bedela jawiga ay doodiisu samayn lahayd. haddana isla goobtaas ma ahan halka lagu go'aaminayo talada. waxaa jira qol kale oo laga sii maamulo isla ajandayaasha qolkan, kaas oo aanan anigu gaarin xilligaas. samaysan jiray wiidigeena durduuran jiray wiidanahooda samaysan jiray aynu dagaale ka digtoonaada dadka yago aynu dagaale ka digtoonaada dadka yago. wareer iima yara aniga iyo iyagaba waxaan ka simannahay aqoon la'aanta. sababta aan halkaa u fadhiyo waxna ma soo kordhiyo, waxna wax kama bedelo. waxaan ahaaday marqaati aamusane ah.
waxaan sidaa ku joogaba waxaa maalin la soo dhigay sawir uu leeyahay mid ka mid ah culimada ku lig leh siyaasadda waddanka waliba aanay isku wanaagsanayn dhinaca dowladda federaalka Soomaaliya ee haatan jirta. Sawirkaas waa xilli uu wadaadka qudhiisu malaysan kareen marxaladda iyo qadiyadda uu gudbinayo dartiis. kadibna qolkii waa la isku qabtay hal isticmaalo iyo hal joojiyo. anigu sidii wasiir hore Juxa ayaan ka dooday sawirkaas inaan la baahin, haddana markii codka loo qaadayay isla sidii Juxa ayaan ka gaabsaday. khalad iyo sax waxaan falayba waxaa intaasba iiga muhiimsan inaan hawshan sal gaaro oo aanan qolkan la iga saarin. ilaa intee baan hoos eegi karaa? sawirkii waxaa la isku raacay in la saaro waliba ugu yaraan 40 ruux hal mar ay wada dhigto, laakiin waxaa ka raacday mucjiso aan dib idinkaga faahfaahin doono. dhinaca kale isla maalinkaas waxaa soo yeertay sheeko lama filaan ah oo cajiib ahayd. la soco qaybta shanaad oo aynu kaga hadli doono maxay qisada wadaadku dhashay, waa maxay sheekada xiisaha leh ee maalinkaas iyana dhacday, ma noqday ruux dulqaad u yeeshay xog raadintan, maxaa qarsoon oo xiiso badan. qaybta shanaad ayaynu kaga jawaabi doonaa.